Asalaamu calaykum. Maanta muuqaalkeenu waxa uu hadli doonaa filim lagu magacaabo Train to Busan. Waxa uuna soo baxay sanadkii 2016. Filimkani waa filim Zambias ah oo aad iyo aad cabsi u leh haddaba ila soco. Filimkani dhab ahaantii aad ayuu ugu yaab badan yahay filimada kale. Bilowga filimkani waxaan aragnaa darawal baabuur oo gaarigiisa ay ku dhacday deeradda. Deeradda ayaa u muuqatay inay dhimatay, laakiin daqiiqado yaab leh kadib deeraddii baa kacday. Indhaheedu waxay u muuqdeen kuwo aan caadi ahayn. Darawalku waxa uu ahaa maareeyaha shirkad aad u weyn, magaciisuna waxa uu ahaa Siyok. Dhowr jeer oo hore ayuu guursaday, kadibna wuu furay, taas oo ay sabab u tahay inuu si fiican u daryeeli waayay gabadhiisa. Maalintii xigtay, inantiisu waxa ay yeelatay dhalasho. Waxa ay ka codsatay aabaheed inuu u geeyo hooyadeed. Wuu oggolaaday inantiisa hadalkeeda. Aabbaha iyo inanta labaduba waxay raaceen tareen, waxayna bilaabeen inay u safraan Busan. Tareenka ayaa sidoo kale qaaday rakaab kale oo badan. Kani waa Sang Hao iyo xaaskiisa uurka leh Siyang, iyo kooxda kubadda dambiisha dugsiga sare ayaa sidoo kale la saaran tareenka. Markii uu tareenku istaagay, waxaa timaaday gabar lugaheedu ay wax ka dhaawaceen. Gabadhuna waxay isu beddeshay Zambias in muddo ah kadib. Markii ay noqotay Zambias, waxay qaniintay kaaliyaha tareenka. Kaaliyaha sidoo kale wuxuu noqday Zambias, oo fayraska wuxuu bilaabay inuu si degdeg ah ugu faafo. Dad badan ayaa fayraska ku qaaday tareenka. Dad badan ayaa ka tagay sanduuqa tareenka halka uu fayrasku ka yimid oo u guuray sanduuq kale. Halkaasna waa lagu badbaadiyay maadaama caabuqa Zambiaska uusan halkaasi gaarin. Wararka laga faafiyay tareenka ayaa sheegay in fayraska uu ku faafay dalka oo dhan. Dadka ugu badnaa waa ay ku waxyeeloobeen. Marka uu tareenku yimaaday saldhigga rakaabka, qof kasta wuxuu u cararayay dhanka magaalada. Laakiin markii ay gaareen, waxay ogaadeen in infekshanka Zambiaska uu fayraska ka baxay. Sababtoo ah dadku waxay ku noqdeen tareenka. Marka ay u soo yaaceen dhanka tareenka, waxay doorbideen inay ku fadhiistaan sanduuq gooni ah. Darawalka tareenka wuxuu ku fikirayay inuu u guuro Busan, sababtoo ah waxaa loo sheegay in fayraska aanu ku faafin Busan. Siyok, Sang Hao iyo Yang Kok waxay la kulmeen rakaab kale markay jidka ku helayeen tareenka. Dhammaan lixdaasi qof waxay isku dayeen inay u dhowaadaan sanduuqa ugu horeeya ee tareenka. Inta lagu guda jiray waqtigan, waxay ahayd inay dhaafaan Zambias badan. Dad badan ayaa horeyba ugu sugnaa sanduuqii ugu horeeyay oo halkaasi ku badbaaday. Markii ay gaareen sanduuqa ugu horeeya, CEO danaystaha ahaa u oggolaan inay soo galaan. Wuxuu u maleynayay in 60 qof uu haleelay fayraska. Rakaabkii oo dhammi way oggolaadeen oo yaanay u oggolaan inay soo galaan ayuu yiri. Sang Hao iyo Jim Kane waxay naftooda u hureen Zambias inta lagu guda jiro dagaalka, si ay fursad u helaan inay albaabka ka furaan oo ay tagaan sanduuqa ammaan ah. Markay gudaha u soo galeen, afartoodiiba wuu go'doomiyay si haddii ay u qaadeen infekshankani, kuwa kale ay uga badbaadaan. Gabar ka mid ah dadka rakaabka ah ayaa aad uga xumaatay markii walaasheed in Jilly ay isu beddeshay Zambias. Dabadeed waxay si bareer ah u furtay albaabkii ay ku sugnaayeen dadka cudurka qaba. Intaa kadib burburka wuu bilaabmay. Dhammaan Zambiaska waxay galeen sanduuqaasi oo ay laayeen qaar badan oo ka mid ah dadka soo haray. Kaliya waxaa ka badbaaday dadkii qolka ku go'doonsanaa, waxayna ahaayeen Siyok, Sang iyo Sin. Kuwo kale marka iyagoo Siyok iyo kaaliyaha tareenka ayaa naftooda ku badbaadiyay iyagoo ku dhuumanaya qolka musqusha. Kadib waxaan aragnaa in jidka tareenka la xiray. Marka uu tareenku istaago, rakaabka soo haray ayaa soo baxay si ay u helaan tareen kale. Siyok ayaa kadibna muujinaysa mar kale hunguriga. Wuxuu u jeedaa kaaliyaha dhanka Zambiaska, wuxuuna badbaadiyay naftiisa. Kaaliyaha ayaa dhimanaya, iyo in Yang Sung danaystaha ah ayaa badbaaday. Inkasta oo uu badbaadiyay, laakiin Zambiaska ayaa qaniinay. Waxaa loo bedelay Zambia, wuxuuna weeraray dadka soo haray. Siyok wuxuu la dagaalamay Yang Sung, laakiin waa la garaacay. Hadda wuxuu ogaaday inuu noqon doono Zambias. Waxa uu ku xiray gabadhiisa Sang qol ammaan ah oo ku yaalay qolka matoorka. Ka hor inta uusan ka tagin, ereyadii ugu dambeeyay ee noloshiisa ayuu ku yiri gabadhiisa. Hadda way iska caddahay inuu u jeesan lahaa Zambias. Intuu soo jeestay ayuu tareenkii ka booday.
Siyoko aad ayay u qiiro badan tahay marka ay dhimanayso, waxayna xusuusatay carruurnimadeedii gabadheeda oo isna gacantiisa ayuu ku sitay. Hadda tareenku wuxuu gaadhay Busan ugu dambeyn. Kadib 2 qof oo Sue iyo Sang ah ayaa halkaasi gaaray. Labadani waxay ahaayeen kuwo badbaaday oo keliya. Way sii socdeen oo waxay arkeen askar. Askartan waxay ahaayeen Zambians, kuwaas oo xuduudaha ka ilaalinayay Zambiaska kale. Waxay u maleynayeen inay yihiin Zambians, waxay doonayeen inay toogtaan. Waxay maqleen Sue hees u shidneyd, waxayna ogaadeen inay ahaayeen Zambians, laakiin ay yihiin bini'aadamka dhabta ah. Sue waxay qaadaysay isla heestii ay rabtay inay u qaado aabaheed. Si kastaba ha ahaatee, geerida aabaheed kadib waxay u qaadaysay heestan xasuusta isaga. Filimka halkani ayuu ku dhammaanayaa. Mahadsanid.